علنا بربكين حسابسو عفيفو واحد حميسو علنا بربكين حسابسو نيسو إلى الحروني وقوش نعكن الحديدة على أوريني حنوجي معا ألقى حفلتن نيسو إلى الحروني وقوش نعكن الحديدة على أوريني حنوجي معا ألقى حفلتن هاي تاونين مدن تيلان الباب ما جاكريس انت هذا بحين كور وكل جود واحد حري وانا كتحت الباب بناك ما فرماي ما جاكريس مركز عادي شقينا ها تيلان ما حكوا عن عنت ذي كور استقبل ما حكوا عن ايش جعلس استقبل ترتيب ها ما حكوا عن وحكم دعينا انيق خوغا قعبت السكيورتي سيستم كوميشن ايان جاكرين انت اسمع لسه عسى سادي قبتي لا انا كل شرح حتى لكن ماذا فرصه السي جيلان انا كل شيء يا ولكن الا واقحماي قروح ليدي ما عبست ادق اي شيء عبسنا انا شيء سوما سيدي وحو دعينا دن جيلان ان هاد وضفي عنتها سوما حكم دعين سوما استلم كوغينايا مرغو اسبتال كان كوغينا سي بارتان لو مرسيه وما سنتا ولا لا وما باهن اسبتال انا اسك فيعنانا waxay ahaataba ninkan wax ayuu damacsan yahay adiga mudana sasax kula hadlid istimaanta soo dhaaf admiga albaabka ayaa la adkeenay maantana waa la hubinayo kaliya adiga kaale cabsidan ka muuqata maxay tahan mudana goorma barnaysaan teelan waa nin fiican idageyso saaxiibka banaanka ayuu kugu sugayaa Umar teleefankaygu wuu dansan yahay waxaa laga yaabaa Umar inuu iga walwalayo xilligan waa inaan baxaa jeelan adigoo sidaana saaxiibka u tagin haddii kale wuu kaa shikinaya walji macbuus ayaa tahay جيلان عمر تليفون كم حد يقبل ويسمح حدا ما حكوا دع جيلان يا كحنا جيا وحكوا سمي جيلان وحيشي سوفيري تليفونك ayaa biyo iiga dhex dhaca ma ku dhacay ma soo lagu riday jaylan ma xad telefoon biyo ku dhacay ma la murgoonaysa telefoon ana ku keenay ha murgoon ina keen murugtayga dhaaf wadugta inaan murugta jeclan adigoo faraxsan inaan ku arkan jeclan soo saar yalla keen waa ku keena gurigu yaala seewa wadigan xiso yaqay wax weyn aad iga dhigtay telefoon dhum soo ful gaarigan ma beautiful haagal soo hore u soo cabsan ninkeyga waa ku baryaa isdeji caadi iskarga ninkeyga gabartaydu waa kanik sugya waa maydayna fil yaa iga warninki iisiga maxaa ku dabadigay wasaqyo dad ma jooga warninki iga gabartayda dad la'aan maad u qabtaa سبحان الله هي قبتها وكل عافي ما يوم يا أخي جوجا ما كنت أنا حكاين نوين أياتها أباها وكلا ربع حساب مو على أنت شرب ويني يا نوه هديشك أنا ما كان لي قد حاجك سمو لسه وصق هذا تابع دركتها
ابن كلب أنا وقع شقة هذا كفورك هذا أنا كاتب أصلاً قبلتين كاتب شيء حتى ما تبغى هذا وقت هذا ما كان سوق بعدك ترتيب أنا جاي أنا هدلاي بس أنا الله الله كده هاي أنت قاعد تسكت جوجي قمي ما كرر قال adiga maxaa ku dhac ilaa amar aan ku sii gudaha soo galay soo kuma dhin aniga maxaa ka soo doonto gudaha mudane jeelaha saaxiibkeed ayaa banaanka taagna inuu gudaha soo galay aan ka baqay dhibaatana way dhici kartaa marka intaas kaliya ahayd arrinta anigu waan dadaalayo kaliya ukuntan ayay saaxiibiyihiin miyaa macnaa warkaaga soo koob hadda labadooda ma isqabaan mise waa saaxiibo oo keliya hadda laba faraant u geli rabaa laakiin ilaa hadda ma qaba soo maaha ay tuul wax walba waad ii sheegtay laakiin arrinta ugu muhiimsaneed ayaad iga qarisay mudane iga raali noqon ninkan magaaladan ma oo jooga aniga waan bilaabay waxaan u baahnaa inaan kuu sheego maskaxdeeda wayba ka baxdaba ugu ku maqnaa marka magaalada kaarsa ayuu ku maqnaay wuxuuna ka shaqayn jiray shirkadda laamiyada dhisto haddana wuxuu qabaqaabinayaa faraantigeliskooda sida uu ku dhici lahaay waan arkaynaa faraantigeliskooda qaabka uu ku dhici lahaa xaaladda lacagta waa soo xalis maho gabadheeda waan soo xalay mar kale dhibaato nooma imaana soomahan gabadheeda ilaaha ma hadda iska leh laakiin nimanka sii ahaayeena gabadheeda aniga soo kumarinahay soo daba kicin maxaad ii soo raacday maxaan kuu soo raaci waaye anigoo weliba indhahayga shanta ayay nimanka kuu handadaayeen nimanka sii ahay maxayna kaa rabeen iisha gabadheed maxaa kugu dhacay hooyada samayn karin aabbahaaga xaaladdiis way xumaatay adigana wax kugu dhacay ayuu diidanaa aabbaha lacagtaada wad haystaa soo mahan saasaan kaa rabaa mar dambe kuguma arki kara meelaan joogo taleefankaygana isku soo wicin baraaba gabadheeda okay alxamdulilaah ilaahu adigaa ma hadda iska leh aabbo waa ku barya waad xanuunsantahay daawadan cun waad caafimaadaysaa insha allah raynja way ahaa axbad iguma hadlayso aabbo waan fiicana maxaad u leedahay waaba xanuunsan tahay baa kaa muuqda aabbo aabbo xamse xaaladaada ka waran aabba adiga ma fiican tahay warana ilaahay ha ku caafiyo ilaahay ha ka aqbalo aniga meeshaan wax kale kama soo doonna boombaleg ayaan ka soo doontay magaciisana waa jilii waana jeclahay aniga jilii gabadhan waa walaashay magaceeda ilwaan ayaa la dhaha qolkan ayay degnaanaysaa mar dhow ayaa nagu soo biirta annaga maxay dhahaysaan ii sheegba ilwaan jilii soo dhowo ayay ku dhahaysaa jilii lama yidhaahdo seenabaa la dhahaa may seenab lama dhaho jilii ayaa la dhahaa hooyaana u bixiso magacaas bombolahan jilii lama yidhaahdo seenab ayaa la yidhaahdaa ma fahanta hadalkeyga sug anaa wax ku tusaayo bombole igu wereerinay maanta si bombaleega walaaleega goyn waa ku tuugaa ishiina waa u baahanaa gabadheeda gacantay ka qashay مسلسل أنا أقول لك أبدا قبل سيدي محكوم قارين حريص مليد ميا أصل 24 حريص حقي كادي مايا waxna xariiso aan leeyahay haba yaraatee ma jirto soo kuma dhin cunugta mar dambe haddii aad goysiisa ikhtiyaarka ayaan ku dhaha weliba waxaan ka rabo ma lahan sidoo kale aragtida walaa codkeedaanan u baahnayn idhaafiya cunugtaas anigana adinkeeda ma raba ayaan dhaa iga hortaga maxaad ii hortaagantiin dhammaantiin iga baxa maxaad ii hortaagantiin ilman afkaaga iga xir hooyadii sii daayaqay naagta idinka haba yeeshin cunugta xooleyda ayay ka jeclaysaa sabab iga waxaa tilmadaa uga dartay ka tag naagta iga taga dhammaantiin qofna ma arki karo araggiin iga qari seenab ayaa la yidhaa seenab waayo magaceeda magaca kale ma yeelan karto
jiili lawiira Zainab waa Zainab magaceeda Zainab ayaa la dhahaa gabadheedii Zainab ayaa la yidhaa Zainab ayaa la dhahaa magac kale ma loo bixin karo hooyo cuntadaada aad baan ugu xiisay igaarkii caafimaad iigu cunbo aamiin haa waa dharga hooyo alxamdulilah alaabtan qaada igaarkee anaa aruuraya maxaan jiraa ii fadhiisaba anigoo joogama alaab qaaday hooyo anaa qaada igaarkee isdajaad hooyo mid aan ku weydiiyo taleefonkii tooslaha halkan ii yeelay ma aragtay anaa kuu raadiyaa minaglaas ku jiraa qolkan kasoo jiraa igaarkee caddoo boolo waa kalaya waan soo helan mugo moobeelka ay dirsatay hooyo keeno asagii waa mahadsanta hooyo macaan igaarkee adigaa mudan caafimaadna iigu waa gabartaydi murugta iska daa boombele berri anaa kuu soo gadaa oo jadiida weliba kii ka fiican isdajiyo keliya aabe iska dhaafle aabe haddaa mid ku weydiiye walaashay sababta boombalaa uu jajarta maxaa waaye wax kale maahan ee maskaxda ayay laada maya sidaan u jeeda walaashaa kaaweynaa kaa aqli badan waad u jeeddaa walaashaa inay jirtay shibka dhin laakiin abba waxaan ku weydiinaya naagtan intaasoo sano maxay ku maqneed sidaan o dhan maxay u samaynay sabab maxay gabadha irugu qaylinaysaa maxay ka samaysaa caayisha aabbo madhiir isdaji adiga waxaan isdajaaya ma laha aniga xanaaqiga keenaya runtaa miya meeshaad iyada ka canaanan lahayd ayaa aniga iga qaylinaysaa soo uskudaan kuuri walaa kalba gafuurkan kugu dhafaa koombada aaba macaan isdaji waa ku baryaa adiga ayaa xanuunsan fadhiiso yare socaadna gacmaha iska soo dhaq soco fadhiiso aabo tartiib walaashay ays adigana isoo fiiri bal waxay samaysa midaan hawlwelin aniga ayaa kula samaynaya haddii aad rabto runtaa miyaa jeelaan haa waa runtayda waan tulaynaa meesha uu ka jeexan yaha kadibna waad ku ciyaaraysaa anigaa kaa hubo murugta iska daaya marka okey waa maasantaa walaashay jeelaan gabartaydii aan jeclaa waa ku baryaa ii seexo anaa kuu soo gadaaya berriye masiibadii ma hadashay maya ilaa haddirtan xaaladdu way qasan tahay gabadhaan maba hadlows afka ayay isku haysataa ahyaa duni maxaan sameeyaa ilaa ay hadda waa fahmi lahaa gabadhaan meel laga haysto markay naga tegaysaba caafimaadkeed ma wanaagsaneen markay soo laabatan wayba ka sii dartay gabadha cunugti ma soo seexaysa haabo wiilkaanna ma ka ag dhoweyd haabo way ka ag dhoweyd walwal yuusku gelin ilaahay rabbi oo garabna sii caninta sir haddii ay wax gaari lahayn bal ka waran hooyo istaagfulhadha waxba kuma dhacaayo walaashay xaaladdeeda soomaadna arkin hooyo ilaan gabadheeda ayay waxay u aragtay cadow inay ku tahay ka waran waa habeen saq dhax yaana la maqlin dhulkana dhagow leeyihiin naga aamu inaad taxadirna ayaa loo baahaya aniga may qof waxa uma sheegaaye intaanoo san ayaa gabadhan ka soo qarinaya haddana ma laga yaaba inaan u sheego mugja weye dhegaysto mujgaan yaa loo sheegin caaishaa inay olwaan hooyadeed tahay dhacdadan kadib shaki ayaa galaya sooma ogidin idinka aniga ayaa hawshan dhammaynayna ee adiga weywelka iska daa mar haddii gabadhan ay noo soo laabatay wax walbana khayr ayaa ku dhammaanaya adig murugta badan iska daa dab ilaahay yidhaa wax kasta waa ay dhammaahaya musalsalkani wuxuu gaar u yahay asal 24 tv taylaan wuxuu ku su'aalay brograamadeedoo dhan sababtaad ku kasashay maxay tahay dad marti ayaa london iiga imanaysay waxaanan doonaya doonta korkeeda inaan ku casuumoon casho ugu sameeyo kabtankiina wuxuu ugu yidhi inaan kagaan kasara sabab maxay ku dhacday marwa farayaal dadka howlahooda inaad kasasho maxaad caado oga dhigateen adiga milii safaarayga ka bax doonta hawshaad ka lahayd maxay ahayd waa hawl aniga ii khaasa haddaba baaji hawshaas ma baajin karo laakiin waxaan kuu ballan qaadaa martida casho kale kacsan inaan u diyaariyo ha ka baqin kaagma baahni
jaylaan doonta xabadda noo shaqaynaysa maarta 10 ugu dhigtana maya mid dariska inaan ku kala kicin rabaa oo gacanta maxaa kaa helay way fiicantaa gacanta laakiin walaashay xaaladdeedu ma bagan cumar saasaa dhihin wax walba isbeddelayaan walaashaan way fiicnaanaysaa sidee ku fiicnaanaysaa walaasha soo in muddaa kaama maqnayn haddana waa kuu soo laabatay wax kaaga fiican miyaa jira dunida maya waa saxan tahay jelin inay soo noqoto ma xuma laakiin 10kan sano ay maqnayd waxa ay ku maqnayd iyo hawshii qabanaysa intaba ma idiin sheegta mase yacni waxaan ula jeedaa markay soo noqonaysay xaaladdeed waa ay xumadna qof kale la socotay maya arrintaas hooyo ayaa weydiisay cidna ima daba socota ayada arrinkan ma iga hubtaa mase anaa u tago soo weydiiya walaasha baroon walaashay aniga ayaa kaa aqaano haddii ay wax sheegi lahayd hooyo markay weydiisay ayay sheegi lahayd wayna madax adagtaa anaa og gabadheedii boonbalaheeda quruxaa laga soo dhigay walaashaa jeele ayaa kuu soo qurxisay waa kana kaale iska arag beelo bal gabadhaada u fiirin boonbalaheeda aada u qurux badan yahay gabadheydii laakiin iskoolka markaa ka timaado kadib ayaad ku ciyaaraysaa oo gabadheed aada u qurux badan yahay sida adigoo weliba qurux badan yahay may iskoolka aad kadib markaa ka timaado aad ku dheelaysa okay gabadheeda xilliga iskuulka ayaa la gaar boorsada qaado raashiinkana cuniyaa gaajaas ku dinayaa orodaya soco macdayda anigan qaraabaan raadsanaya waa ninkeyga nabad iigu soo laabo thank you jeelan hadalka jiracna halkaa noogu ekeen inaad murugooto looma baahna maxaa yeele anaa kula jooga oo waqti walba garabkaada taagan murugtayga dhaaf ma u geliyaa mii fahamtay waayahay dhoolacaddaynta awahe qac ka sii hal mar ruuxdeediioo haddii aad ila joogto farxadba iima dhinnaa dhammaantan haddii hal meel aan wada joogi lahayn sooma fiicnaan lahayn waan wada joogaynaa maxaan shaqadiina aado waaye gacantaada sidana ma shaqo aadaysaa meel iyo hal maalin xataa naso may xabiibi walwalka iska daawo iska caafimaadaysaa gacantaada dhowr una sheeg shaqo badan inaadan marnaba awoodin waayahay wixii iigu darnaayaan iloobay taleefonka waa kana qashinqashankiiyo kala dhawaan ka soo tiray sawirro lee ku haray laakiin kan taleefonkaaga waa aniga taleefonkayga horan dib ugu laabtay adaa kan kugu talagalay haddii adigaadna ahaa lahayn oo adigaba haddii aadan ahaa lahayn soo dhow igarkii waan dhowahay kaasoo lacag ma ku jirtaa ka dammo gabadhaada weyneeda soo laabatay shalay aanay is aragnay sidaas darteedaan fasax qaaday soomaa ilaa iyo hadda waxaan ku dhaho ayaan la ahay hambaliyo gabadhaas sodonkeeda intin wey mar hore ayaad heli lahayd adiga soo hadal xaggee nambarkee okay haddaan ku imaanaya
hoo qaado mudan teelan ayaan kuu soo dhiibay oo telefoon waa bii soo gaday miya maxaa dhiba hadduu kuu soo gado telefoonka nacalla telefoonkiisa ku yaal maba rabaan ku dheh inaad telefoon ii soo gada looma baahnaa maya kuma aana soo gadin waa hadiyada shirkaddeenna ay qaybinaysa waxaan loogu talagalay dadka ka shaqeeya shirkadda aytuulba waa la siiyey kumaysan sheegin miyaan maya iimaysan sheegin adigii aytuul xiriirka idinka dhexeeya xiriir wanaagsan maahan miyaan musalsalkani waxaa loo talagalay walwalka faraha badan iska daa hadiyad iyo telefoonka inkeys haddii xitaa lacalla aan kuu soo gaday maxaa ku jaban ii sheeg waa caadi wax waa lasu soo iibin karaa soo maha calaa kulli xaal hadda telefoonkan ma rabtid miyaa maya ma rabo telefoon waa haystaa waa kulle mahadsantahay qof weyn ayaa tahay aniga dantaadan inaan kuu sheega waa lagaaga fiican yahay enukaadii gacanta faashadda kaaga duuban dhaawaca jikada miyuu kaa soo gaaray mise qaab kaluu kugu soo gaar dhaawac in maadaama dhaawacaa tahay aytuul wax garaba ma ku siisaa shaqadeedaba soomaa faara gashato allah yashfiik jiilaan hayo shaqadaada qabso adiga kaale maxaa samaysana taleefonka maxaa mudanaha ugu celisana haa waanu celiye jeelaani adiga maxaa kaa qaldan oo kula yaabanahee taleefonka waa taleefon qurux badan hadhow xaggee kaas camalka helaysaana maxaad ku hadlaysaa adiga uma baahni taleefonka lama soo gadan taleefonka hadidid oo ahay amba waa la ii keenayso uma jeedidna adiga teelaan mataqaan balse waa nin aad u aqli badan guri dad taajiriinaan leeyihin ayay joogtaa mana ka faa'iidaysanaysa ka waran hadalkayga dhegeyso haddii ay kaa helaan sidoodoo kaleeto maalqabin ayaad noqonaysaa adiga hadalkayga ma fahantana idhegayso walaashee dadkaan deynta igu leeyin inaan u gudaan rabaa wax kale oo nuga baahanaya ma jiraan aytuul boorsadeeda waa inaa ii diyaarisaa aniga waxaan rabaa inaan doonta aado waayaha mudan teelaan caawana cashadeeda darawalka ayaan u soo dirsanayaa waayaha mudanahayga